gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorame ayaa ka waramay arrimaha nabadgelyada tahriibka iyo dhanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka soo saaray go'aan lagu joojinayo bacda inay dhibaato u leedahay deegaanka waxa uu gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorame Suleyman Xasan Xaddi uu farta ku fiiqay in sharciga la marsiin doono cid kastoo fulin weyda go'aanka uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo lagu joojinayo bacda gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorame isagoo ka hadlaya arrimaha iyo arrimo kalena waxa uu yiri arintaas kulli waa arrin aad u wanaagsan oo arrin aan in badan sugaynay inay dhacdo laakiin waqtigii ku haboonayd ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay waanan fulinaynaa sida ugu dhaqsaha badan oo loogu hirgelinayaa degmada Boorame waliba awaamiir iyo shuruuc lagula dhaqmo cidii ku xadgudubta go'aanka ayaan soo saarnaa hadaan nahay golaha deegaanka degmada Boorame la fulinaya marka muddadaan u qabanay wixii ka dambeeya bakhaarka soo la gelayaa waaxda dawladda hoose faya dhowrka ayaa gelaya waxa la waxay ku arkaan baco iyo meesha lagu arkaba waa la ganaaxiyaa wana la gubayaa baca taa kulay anaga laftigeegu hawlgal xoog ma ka sameynay meelo badan oo dadka tahriibiyaasha la noogu sheegay waan ku daba jirnaa oo magacyadooda hayno liiska wala noo soo gudbiyay ciidanka nabadgelyada ayaan u dirnay waxaan doonaynaa goorta gacanta lagu soo dhigo talaabo sharciga waafaqsan inaanu ka qaadno qaarkoodna waxay sheegeen ciidamadu in ay soo qabteen waxaan doonaynaa hawsha inaan si xoogan uga hawlgalno cid kasta oo nabadgelyada jiritaanka Soomaaliland loo tuumo inuu caqabad ku yahay meel baa loogu soo jeedaa marka cid kasta oo nabadgelyada carqaladaynaysa deewaanu ku soo jeednaa kulay kulanku uu mudaysan yahay muddadiisa uu ku beegan yahay hadda markaan ka fadhiga furno oo furmaya maalin dhow sabtida ma xadda ayuba kulay ajendaha ka mid noqon doonta isku soo wada duubo markii ugu horeysay ee gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorame Suleyman Xasan Xaddi uu ka hadlo arrimo kala duwan oo saameyn ku leh deegaanka uu xukumo waftiye laki TV-ga qaranka magaalada Boorame.